ebo magada adimadena on malo yangu ombahane ebo magada awadena oruna alayle ebo magada adimadena on malo yangu ombahane ebo magada inan isku filana la aqoonsaye alla magane la ogaye inan isku filana la aqoonsaye alla magane la ogaye kulanti waxaan u wanaagsan dhammaan badda wadayaal ku soo dhawaada barnaamijka gaar oo aanu ku soo qaadan doono martiqaad ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland ay u sameysay safiirada iyo wakiilada Soomaaliland u jooga wadamada caalamka kulankaasi oo ay ka soo qayb galeen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saad Cali Shire wasiirka xigeenka wasaaraddaasi mudane Kaysar Cabdilaahi agaasimaha guud iyo waliba wakiilka gaarka ah ee Soomaaliland u qaabilsan wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya Marwo Edna Aadan Ismaaciil kulankan ayaa ujeedadiisu ahayd sidii isxog waraysi ay u yeelan lahaayeen wasaaradda arrimaha dibadda iyo safiiradaasi iyo sidii loo dardargelin lahaa hawlaha ay safiiradaasi iyo wakiiladu mas'uulka uga yihiin qaranka ee la xidhiidha sidii looga midho dhalin lahaa iyada oo dariiq midaysan la raacayo qadiyadda ictiraaf raadinta Soomaaliland kulankaasi ugu horeyn hadaba waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga kii hore wuxuu ahaa qadada kan imaatika timaadeen iyo hawsha quruxda badan ee runtii wanaagsan ee qiimaha leh ee maanta mudan rag badan ay soo qabteen kaawan ka mahad celinaya insha Allah dabcan fursad baynu imka haysanaa gidigeen bixirkeena saaran wasaarad ahaan iyo safiir ahaanba waxa weeyaan Soomaaliland inuu iibino marka qaarkood waxa iibisaaba adag saad ku hesho maanta waynu haynaa waxaynu iibin lahayn chance baynu haynaa marba adigu inaga yaraa qalloocatay laakiin waxa madani ku soo noqonayso laynka toosan marka runtii wax badan baynu haynaa inuu iibino waxaynu u baahanay sidii aynu uga iibin lahayn wadan walbaba markaynu ku noqonno intaynu halkan joogna mid suurtagal ah hadday timaado dowladaha iyo baarlamaanada iyo mataqaana wasiirada saxaafadda maxay siyaasiyiinta akaademiyaha intaasoo dhanba telefishinada si aynu uga iibin lahayn maxay dhahdaa qadiyadda Soomaaliland hortaasi waxa weeye waa tii fursaddan aynu gidigan bay isugu wadanay caalamka oo dhan baynu isaga wadanay rag badan iska soo bixiyay tigidhadooda iyo kharashadooda iyo waxaas oo dhan inkastoo aan codaynin marka runtii aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa juhdiga badan aad geliseen qadiyadda guud ee naga wada dhaxaysa kulli update directory baanu sameynaynaa markaas waanu soo wada qaybin doonaa insha Allah si ay soo wada xiriiraan marka dal isu baahdo website-keena waa ku jirtaa ma filayaa ama qof yalla baan ku jirin ma laga yaabaa wali intaan ku jirina wal ku dari doonaa insha Allah biidhnilaahi alkariim waxaan u baahnaa inuu kana inoo noqdo bilowga amba shirkii ugu horeeyay wada shaqaynta isbarashada ka sokow xilkayna saaran iyo sida aragtidiina markaynu ka faa'iideysano waarnimadeena bad qof walba sidoo arkaysan inuu xilkeena inuu gudan karo guud ahaan isxog waraysigaasi kadib ayaa dhinacyadii ka soo qayb galay kulankaasi waxa ay dhammaantoodba hadal ay ka jeediyeen munaasabadaasi waxay iska daba mareen guusha taariikhiga ah ee laga gaaray codbixintii doorashooyinka ee dalka ka qabsoomay iyaga oo tilmaamay in sidii anshaxu ku dhehnaa wadaniyadda iyo isjacaylku ee aadka u heerka sarraysay ee codkooda ay u dhiibteen shacbiga Soomaaliland iyagoo dhinacna nabadgelyada ka ilaalinaya ay ahayd mid aad u sareysa farxad la gelisay dhammaanba dadka Soomaaliland jecel iyagoo geesta kalena tilmaamay in ay ku
bogaadinayaan komishanka doorashooyinka dadweynaha axsaabta iyo xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne axmed maxamed siinaayo hanaanka qabsoomidda doorashadaasi taasi oo ay weliba iftiimiyeen in ay beesha caalamka ahayd mid aad u soo jiidatay kuna tilmaameen tallaabo aan hore uga dhicin mandaqada geeska afrika iyo guud ahaanba qaaradaba cabdi maxamed marka hore ilaahay baa mahad leh marka labaad waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland sidii quruxda badnayd ee wanaagsanayd ee nabadgelyada ahayd ay ugu dareereen doorashadii madaxtooyada ee 2017 waxa weeyaan waa guul u soo hoyatay dhammaan shacabka reer Soomaaliland waana dhammaanteena waa inoogu hambalyeynaya waana wax ilaahay loogu mahadnaqo marka xiga guusha aynu gaarnay waxa loo baahan yahay inaynu ilaashano inaynu ka faa'iideysano waxa inooga qabsamo waddanka gudihiisa ayaynu ka iibin karaa dibadda marka waxaan leeyahay dhammaanteen waa inaynu isu hambalyeynaa ciddii guulaysatay loo hambalyeeyaa ciddii laga guulaystana ma garanaysaa iyaguna ay hambalyeeyaan marka waxaan leeyahay waa fursad fiican waxa weeyaan waa arrin aad qiimo badan ku soo kordhinaysa wax badan ka taraysa اعترافك oo ah waxa ugu muhiimsan ee shacabka reer Soomaaliland ay doonayaan maanta ilaahay baa mahad leh nagu kulansiiyay maanta carradeennii dalkeennii Soomaaliland waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda arrimaha dibadda gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda Saacad Cali Shire oo suurtageliyay kulankan aan ku kulannay maanta haddaan nahay safiiradii qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland u joogay dunida dacaladeeda runtii waxa aan aad iyo aad u jecelahay mahadnaqa kasakow inaan u mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Siiraayo oo ah madaxweynihii kaga tagay doorashadii uu xilka ku hayay ka horeysay 8 cod madaxweynaha maanta go'aansaday inuu aan dib isku sharxin ee uu yiraahdo aan musharax maahi waa waxyaalo ay Soomaaliland kaga duwan tahay dhammaan Afrika iyo wadamo kale oo dunida dacaladeeda ah taakasako waxaan sidoo kale hambalyo iyo salaan u gudbinayaa dhammaan xisbiyada qaran ee muujiyay tartanka aadka u quruxda badan iyo dhammaan shacbiga Soomaaliland intii ay hawlaha socdeenna dalka waan joogay runtii waxa ahayd wax aad u qurux badan sawir qurux badan oo Soomaaliland ka gudbay ayay ahayd waxaan aan leeyahay maanta xisbi ma guuleysan Soomaaliland ayaa guuleysatay anagu saddexda xisbi qaran iyo cidii madaxweyne noqotaa kii yimaadaaba waxa weeyaan waa Soomaaliland marka waxaan leenahay Soomaaliland ayaa guuleysatay runtiina haddaan nahay wakiilada dibadda caqabada kaliya ee hor taagneed markasta la weydiinayay waxa ahayd doorasho qabsada doorashadaas wax walba idinkaga xidhayihiin ha noqoto mid maalgelineed ha noqoto mid aqoonsi runtii waana la inooga marxaati furay oo dadkii faraha badnaa ee inoo yimid international observerska ahaa waxa ay ka marakaceen wixii quruxda badnaa ee aynu samaysanay waxa weeyaan waa Cali Xuseen Ismaaciil Cali Shombe waxaan ahay wakiilka Soomaaliland ee fadhiya dalka Ethiopia marka ugu horeysa mahad waxa leh Ilaahay naaburay ee inoo suurageliyay horumarka iyo nabadda iyo dimuqraadiyadda aynu ka shaqeyno ee Soomaaliland marka labaad waxa mahad leh shacabka reer Soomaaliland ee goobta markii ugu horeysay ka codeeyay bari ilaa galbeed dalka isu dhan oo aan gobol iyo degmo toona ka maqnayn inta ka bacdi waxa iyaguna sharaf mudan xisbiyadii tartamayay inta ka bacdi waxaan doonayaa inaan fariin halkan uga diro shacabka reer Soomaaliland fariintaas oo ah musharaxiintii tartamayay waxay nagu lahaayeen cod inaynu siino codkii waynu siinay wax ka badan nagu malaha waynaynu markaa ilaalinaa nabadgelyada wixii wax nabadgelyada u dhimayna waynaynu ka weecanaa haddii aanu nahay wakiilada dibadda waxa ugu weyn ee aanu caalamka ka iibinaa waa laba qodob waa nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda haddii aanay nabadgelyo jirinna horumar ma imanayo nabaddaasi waxay u horseed u tahay wixii aynu doonayno dowladnimadeenna saldhig ay u tahay ictiraafkeenna aynu raadinayna saldhig u tahay horumarkeenna saldhig u tahay waxaanu leenahay maanta waxa ku guuleystay doorashada Soomaaliland waxaad ka arkaysaa sabeesha caalamka ay uga hadashay haddaba guusha aynu gaadhnay yaan dib looga noqonin waxaan maxamuud cabdi dacar mumasalka jooga Soomaaliland jooga EU-da European Union-ka marka laba kelmadood baan odhanaya ta ugu horeysa waxa weeye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shacabka Soomaaliland qaybtii weyneyd ee wanaagsanayd ee quruxda badnayd ay ka qaybteen intikhaabaad waxaan leeyahay ololihii
iyo doorashadiina si wanaagsan oo caalami ah oo standardka caalamka gaaraya ayay nagu dhacday halkan waa ogtihiinoo waxaa yimid 60 iyo dheeraad observers goobjoogayaala oo adduunyada meel walba ka yimid min America ilaa Europe ilaa Africa ilaa meel walba ka yimid nimankaasi iyo dadkaasina waxay qireen in dimuqraadnimadii Somaliland meel wanaagsan ay marayso meel wanaagsan ay gaadhnay farxad weyn taas way noo tahay waana arrin irid in gelinaysa si aynu dhaqso ugu helo ictiraafkeennii marka waxa kaliya aan oranayaa imika electionkii wuu is over uu dhammaaday waxaanu imika waxa ka dambeeya ka shaqaynaynaa gacmaha intaynu isqabsanno aynu si walaaltinimo ah waddanka aynu ugu wada shaqayno iyo horumaristiisa anigoo ayaan maxamuud maxaa cashuur wakiilka Somaliland u fadhiya dalka UK ugu horeyn waxaan salaamayaa shacabka reer Somaliland meel walba ay joogaan gaar ahaan waxaan runtii aan hambalyeeynayaa dhalinyarada reer Somaliland koone iyo koone sharaftii ay muujiyeen sidii ay u codeeyeen sidii kuyuga dhaadheer u taagnaayeen muddada dheer runtii anigu jimcihii baan waddanka imid waxyaalaha ugu wacanaan aan waddanku arkay waxa weeye maalintaas oo ahayd maalintii campaignka ugu dambeysay in maalintii ku xigtay aadan waddanka ku arkaynin wax astaana oo la ixtiraamayay sharciga dalka iyo sida ummadda reer Somaliland mar walba ugu hoggaansan tahay shuruucda dalka mar labaad waxa aan runta aad iyo aad u hambalyeeynayaa ciidanka qaranka oo maxaa la yiraahdaa sanadkan meelo fara badan oo hore loogu cadeyn in sanadkan laga codeeyay maxaa la yiraahdaa bariga fog iyo sidii dadkii ay uga qayb qaateen doorashada dalka maalintaas runta guud ahaan caalamka waxa laga bixiyay the miracle baynu ka noqon adduunka ama Afrika ha noqoto ama adduunka intiisa kale waxaana iyaduna runta farxad ah dhibkii yaraa oo ka daba yimid maaragtay doorashada in si afgarad leh lagu xaliyay taasoo waliba maaragtay ammaantiisa ay ku sii leeyihiin xisbiyada mucaaradka iyo commissionka oo address gareeya cabashooyinkii yaryaraayo taagan waxaan rajaynaynaa in arrintaasi saameyn maxaa la yiraahdaa bulshada reer Somaliland dadaalkii ay samaysay sidii sharciga ay ugu hoggaansanayd maxaa la yiraahdaa wasaarad ahaana runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa wasiirka wasaaradda idin wasiir ku-xigeenka muddadii maaragtay nala shaqaynayay oo waddanka olole ku jira waliba sanadkii ugu dambeeyay hawshii qaranku ay isdhimin waxaan rajaynaynaa inay natiijada ka soo baxda resultka ciddii heshaba inay noo horseedo in aanu helno maxaa la yiraahdaa guulo cusub oo Somaliland aanu dib ugu dardargelino hawlihii qaranku noo igmaday marka shacabka reer Somaliland reer UK haddaanu nahayna maxaa la yiraahdaa ka safiirkoodii iyo shacab ahaantoodii maxaa la yiraahdaa hawshii aanu qaranka mar walba u haynay baan halkii ka sii wadaynaa waxaan ahay Saamiya Muuse wakiil sharafeedka Somaliland ee dalka Finland waxay sharaf weyn ii tahay inaan sanadkan ka qayb qaato doorashadii ugu horeysay ee dalka Somaliland runtii waxay ahayd doorasho aad u farxad badan leh oo maanta soo jiidatay caalamka dhan haddii ay noqoto campaign ama doorasho ama ka qayb qaadashada doorashada muwaadiniinta reer Somaliland runtiina waxa aad ii soo jiidatay dadku siday ugu wada faraxsanaayeen inay ka qayb qaataan labadii goorba marna campaignki oo saddexda xisbi qaran si sharaf leh ay u soo wada bandhigeen campaignkoodii oo nabad iyo maxaa la xasilooni ku dhacay walibana maalintii codeyntana ay dadku u soo wada baxeen ayadoo gaadiidkuba aanu jirin wax walbana la joojiyay ee qof walba min subax u soo kalahay inuu codeeyo taasina waxay muujisay in qarannimada Somaliland ay ka go'an tahay muwaadiniinta reer Somaliland runtiina aad baan ugu hambalyeeynaa maanta guusha u soo hoyatay Somaliland qurba joogtana waxaan ka codsanaynaa in insha Allah ay ka soo qayb qaataan maxaa la yiraahdaa horumarka Somaliland oo ay noqdaan kulligood maxaa la yiraahdaa dad muwaadiniin ku xiran wadankooda magacayga waxaa Mustafa Abdi Ismaaciil waxaan ahay gudoomiyaha dalladda guud ee Sweden runtii maanta fursad weyn bay tahay sad ogtiinba 13 November waxaa ka dhacay Somaliland guud ahaanba doorashadii la sugayay alxamdulillah si wanaagsan ayay noogu dhamaatay nooguna dhacnay
si wanaagsan baa noogu dhacday anigu waxaan ahaa dadkii runtii ka yimid Sweden waliba caasimadda Stockholm anagu iyo rag fara badan oo kale iyo dumar fara badan oo kale oo runtii indheenayay qaarkoodna runtii ka shaqaynayay muddadii aan joognay runtii iyo waliba maalinta doorashada runtii meelo badan baan ku soo wareegnay dadku si wanaagsan oo fiican ay runtii u codeeyeen anigu ahaan iyo intii kaleba runtii ka timid qurbahaba waxaan u aragnay inay ahayd doorasho runtii aad u wanaagsan dadka reer Somalilandna ay runtii maalintaas codkooda ay dhiibteen waxaan halkan aad doonayaa inaan uga mahadnaqo saddexda xisbi taageerayaashooda oo runtii muujiyey taageero aad u fara badan muddadii ay doorashadu socotayba sidoo kale waxaan halkan uga mahadnaqayaa dhammaan shacabweynaha reer Somaliland dal iyo gudaba runtii sida ay uga qayb qaateen ugu dambeyntii waxaan halkan iyadana runtii aan jecelahay inaan uga mahadnaqo anoo ku hadlaya afka gudoomiyaha dalada guud ee Sweden saddexda gudoomiye xisbi ee qaran gudoomiye Muuse Biixi xisbiga kulmiya Faisal Ali oo sadogtiinba gudoomiyaha UCID iyo wadani Cabdiraxmaan Cirro runtii waa saddex nin oo aan oran karo waa saddex shakhsi oo runtii tartan wanaagsan oo xalaal ah muujiyay ilaah baana og runtii saddexdooda ka heli doona dadku waxba iska sheegaan oo yiraahdaan waxa guuleystay xisbiga laakiinse waxaynu sugaynaa natiijada u dambaysa oo ay commissionku runtii ay soo bandhigi doonaan bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Amaan Maxamed Guure waxaan u shaqeeyaa wasaaradda arrimaha dibadda maanta waxa loo sameeyay marti qada loo sameeyay safaaradaha adduunka dadka inoo fadhiya ambaasadorada sharafta leh inoo fadhiya ayaa loo sameeyay halkan waxaan soo istaagay maanta inaan ilaahdo ma sha Allah doorashada si fiican bay noogu dhacday ilaahay wadanka nabadgelyada hayno sugo in xilka la ilaaliyo nabadgelyada ku wada fadhina maanta ma sha Allah ilaahay qarankeena Soomaaliya qabsataa waa inaka ilaahay nabadgelyada hayno sugo wadanka intaas una doonayna Rahmaan Rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Nuur Axmed Waris waxaan kale maanta aad aan ugu faraxsanahay inaan hambaliyeeyo shacabka reer Somaliland meel kasta oo joogan gudaha iyo dibadba sidii fiicneed ee doorashadu u dhacday waxaan aad u jeclaystay isu soo bixii iyo banaanbixii wadanka ka dhacay ee xisbiyadu ay ku tartamayeen Somaliland halka waxa ka soo baxaysa dadka reer Somaliland ilbaxnimo inay ka muuqatay wadan jacayl inuu ka muuqday inuu wanaag fiican ka muuqday iminkana waxaan ku rajooynahay inaynu halka ka sii socono inaynu qarannimadeena iyo ictiraaf raadinteena halka ka sii amba qaadno waxaan jecelahay rasuulkii commissionka qarankana inaynu sugu doono insha Allah bismillaahi kariim magacaygu waa Edna Aadan Ismaaciil waxaan ahay muwaadin Somaliland ahaan jiray dhowr waxa kamid ah wasiirkii ugu horeeyay arrimaha qoyska iyo Somaliland markii dambana wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland ilaa 2006 intii ka dambeysana kulli waxaan ahay qof Somaliland iyo aqoonsiga Somaliland iyo wargelinta adduunka in dal la yiraahdo Somaliland inuu jiro qof mar walba ku hawlan baana waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay in Ilaahay igu simo inaan ka qayb galo doorashooyinkii aynu bisha 13keedii aynu Somaliland ka qabanay ee saddex xisbi ku tartamayeen madaxtinimada Somaliland intikhaabaadkii la soo waday lagu soo tartamayay si qurux badan ayay u dhaceen oo gidi farxadina wada gelisay doorashadiina waynu wada aragnay waynu wada daawanaynay sidii quruxda badnayd ee dadku u soo baxay ee ay u dhiibanayeen codkooda ay u dhiibanayeen ajnabi badan bay nala joogay dawlado badan bay nala joogay oo ina eegayay oo bal hadda ina hubinayay inaynu nahay dad iyo dawlad u qalanta in la tixgeliyo ama laga mid dhigo adduunka kale ayaa layna hubsanayay waxaynu tusnay waji aad iyo aad u wanaagsan
dabcan marka la tartamo laba qof saddex qof tartamaan dee gari laba kama wada qoslisay midunbaa helaya iminkana inagoo qarka u saaran in intikhaabaadkii doorashooyinkii natiijadii ka soo baxday in lasoo baahiyo waxaan anoo ku hadlaya afka dadweynaha jecel somalilan anoo ku hadlaya waxaan rajaynayaa in ilaahay kii uu siiyeyna aynu u wada hambalyayn doono kuwii kalena dee kama dambaynine iyagana loo hambalyeeyo sidii wanaagsanayd ay uga soo qayb galeen haddii turunturoo yaryar ay dhaceen haddee bini'aadam baynu nahay oo bini'aadam waa laga filaya laakiinse bini'aadamkuna ma yahay mid ka soo kabmaya waanaynu ka kabannay taasaa qiimo weyn weliba inoo sii kordhisay inaynu nahay dad haddii wax jiraana ka dawooba ka soo kabma ka tallaabsada isu tanaasula isu hambalyeeya horena uu socda danta dadweynaha iyo danta dalkana mar walbaba gacmaha ishaysta oo meel uga soo wada jeeda somalilan maanta waxaa laynooga baahan yahay midnimo waxaa laynooga baahan yahay wada shaqayn waxaa laynooga wada baahan yahay bisayl siyaasadeed inaynu muujino adduunka aynu tusno inaynu nahay dad gaya in la aqoonsado qarkaasaynu u jirnaa waynu u dhownahay waxyaabo badan oo wanaagsan oo laynagu aqoonsado baynu samaynay yaynaan iska kala ridin aynu halkaa ka sii wadno ma foga aynu isku kalsoonaanno aqoonsigeennu ma foga aynu u diyaargarowno inaynu noqonno dal dowlad adagoo wanaagsan leh dowlad leh bisaylkii kuwii laga helayna soo dhawaysa taladooda tixgelintooda ixtiraamkoodu marnaba aanu naga masaxmin aad baan ugu faraxsanahay in waddankayga somalilan ay ii suuro gasho inaan anigoo da'daasa inaan markhaati ka noqdo dhowr doorashooyin oo ina soo maray tan ugu dambaysanay ahayd tii ugu quruxda badnayd ugu wanaagsanayd ilaahay baa lagu mahadnaqaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu bismillahi raxmaan raxiim maanta runtii waxaa sharaf weyn noo ah in halkan uu ku casuumay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dr sacad wakiiladeennii dibadda joogay oo runtii ah haliyeeyo wax badan qarankooda u qabta runtii kuwa aynu ku tiirsannahay si dalkeennu u heli lahaa aqoonsi aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa hawsha ay qaranka u hayaan aad iyo aad bay runtii muxuu ahaaye wax badan u qabtaan habeenii maalinba horumarka dalkeenna ku saabsan waananu ku dhiirigelinaa in dadaalka halkaa laga sii wado waxaa kaloon jecelahay fursadda in lagu faa'iidaysto dalkeennu waxa uu galay doorasho fiican oo sharaf leh oo runtii aan ka dhicin meelo badan oo dunida ah waxaan dadweynaha reer somalilan ku bogaadinayaa sidii nabadgelyada ahayd sharafta lahayd ay u galeen waxaa kaloo runtii halka bogaadinayaa guddiga doorashooyinka qaranka oo runtii si fiican oo sharaf leh muxuu ahaye arrintaa uga shaqeeyey iyo guud ahaan xukuumadda somalilan madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaan uu hogaaminayo oo gutay waajibka dastuuriga ahaa ee dalka inuu ka hirgeliyo doorasho xor oo xalaal ah waxaa kaloo aan jecelahay runtii halkan ka tilmaamo in doorashadeennaasi ay inoo furi doonto albaabo fara badan waxaan dadweynaha reer somalilan ugu baaqayaa inay ogaadaan madaxweynaha soo baxaa inuu yahay madaxweynahoodii saddexda murashax ee tartamayey mid ka midoo keliyaatuu madaxweyne qaranka noqon doono madaxweynahaasina uu noqon doono madaxweynihii qaranka mucaaridi muxaafidba dhammaanteenna ay waajib nagu tahay inaynu taageerno oynu sacab ku soo dhoweyno muxuu ahaye natiijada doorashada taasi oo runtii ah ta muxuu ahaye laynooga baahan yahay si dalkeennu hore u sii maro islamarkaana aynu ugu sii guulaysanno muxuu ahaye gaadhitaanka yoolka aynu higsanayno oo ah dal la aqoonsan yahay madax bannaan horumar gaadha dadweynihiisuna ay ku nool yihiin sinaan iyo cadaalad marka runtii waxaan ugu baaqayaa bulshada reer somalilan in halkaasi wanaagsan ee aynu gaadhnay laga sii wado marka natiijadu soo baxdana si nabadgelyo leh oo sharaf leh muxuu ahaye loo taageero madaxweynaha ku guulaystaana waxa uu noqon doonaa madaxweynihii qaranka isaga ayaa madayn doona isku soo dhoweyn doona bulshada runtii marka doorasho la galo waxaa naf baa timaada madaxweynaha ama mas-uulka soo baxa ayaanay shaqadiisa tahay inuu runtii muxuu ahaye ummadda isu keeno waanu isu keeni doonaa mar kale waxaan halkan uga hambalyaynayaa guud ahaan shacbiyanaha reer somalilan waxaa kaloo mahadnaqayaa wakiiladeenna dalka dibaddiisa inoo jooga oo runtii habeen iyo maalinba shaqooyin wanaagsan qarankeena u haya aad ba umahadsan tihiin waxaan ku soo dhoweyn doonaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dr sacad cali shire hadalkii waa la dhammeeyey waxaan taageerayaa tusaalihii iyo baaqii safiirrada halkan ay ka soo jeediyeen haddii reer somalilan aanu nahay
waxay noo dhammaaday olole qurux badan iyo codbixin qurux badan baa inoo dhammaaday oo caalamkao dhan inoo qiray oo inagu bogaadiyey oo aynu ku kasbannay taaj dahaba doorashooyinku way xanaf badan yihiin way xagxagasho badan yihiin waa lagu kala qaybsamaa waa wax caam oo caalamkao dhan ka dhaca laakiin markay dhammaadaan dadku wuu isku soo noqdaa haddana halkii markii hore midnimadooda joogtay ayay dib ugu soo noqdaan xilka ugu horeeya ee saaran qofka ku guulaysta doorashada maanta waxa weeye inuu dadka mideeyo oo isu keeno laakiin xilkaas keligii ma saara qof kastoo muwaadinoo somaliland leh amba waddanka gudihiisa jooga amba waddanka dibaddiisa jooga waxaa ku waajiba oo waajib muwaadin ahaan u saarana inuu isu keeno bulshada oo ka shaqeeyo midnimada uu ka fogaado wixii sii kala fogeynaya innagu haddaynu somaliland nahay waxaynu ku caannahay laba shay mid waa nabadda midna waa dimuqraadiyadda dimuqraadiyaddii waynu ka soo baxnay doorashadanu ma ahayn tii noogu horreysay waxay tii lixaad waxay tii saddexaad in madaxweynahan ku dooranno taa rikoorkeedu aad buu cad yahay waxaynu u baahanay iminkana nabaddii aynu ku soo caanamaallay iyada laftigeeda inaynu ilaalinno oo lixijeclo u lahaano meel kastaynu joognaba aad baa u mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasna daawadayaal waxaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa kulankaasi ay yeesheen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo safiirada iyo wakiilada somalilan u jooga waddamada caalamka tan iyo intaan barnaamij kale ku kulmi doono nabadgelyo Ramadane istadidnaye baryadiyo amahda istadidnaye Ramadane شغال أردي